ياقون أدون هاي intiina kasoo qaybgashay xafladan aad iyo aad baa awal mahadsantihiin kasoo qaybgalka kasoo qabshay soo dhaweynta wasiirka tamarta isla markaasna ah wasiir xigeenka koowaad cabdiwahaab ibn umar taas inta ugu horeysa 3 saacadood ugu horeysa ayaan barnaamijka idiin wadi doonaa kadibna waxaa ku qoran Dr. Maxamed Teys oo igala wareegi doona haddii aan yiraahdo awalan hadda askii baro magacayga waxaa la yidhaha Saciid Faarax Ducaale dadka qaarkood waxay la yaabeen xidigta meesha iigu jirto waxay isleeyihiin kulay saraakiisha hormo ahay ma wasiirka yimid ma u taagay waxyaabo badan iftiixa marjam lagu sii xaawil guuleeda sheegtay marka xidigtan waxay ka taagan tahay philosophy kale oo hadda aan geli karin taas qofkii raba si gaar ah ayuu arki doonaa marka barnaamijkeeni haddaan idin dhigo sidoo u dhici doono wuxuu ka koobnaan doonaa khudbooyin quraan madaadilo iyo entertainment intaas iyo gabayo iyo suugaan Soomaaliyeed inta waa inay haynaa awalan waxaan leenahay marlabaad ku soo dhawaada barnaamijka xafladda loo sameeyay wasiirka loo martida ah asigana waxaan leenahay meeshan Toronto la yiraahdaa waa dadkii Soomaalinimada ay yaro ku dambeysay ilaa hadartan waxa meeshan jooga beer maaha waa wadanka wixii deganaa magaalada Toronto deganaa oo jecel dawladda midnimo qaran dawladda ku meel gaar ka maaha dawladda midnimo qaran inay socoto ay horumarto mar walbo oo aan soo dhaweyn wufuudda ku socda dawladda si aan hagar lahayn ayaan uga soo qayb galnaa dhammaan haweenkeen dumarka ragga akhyaarta si aan hagar lahayn oo qabiil ku jirin oo beel ku jirin oo maaragtay iyo personal interest ee ku jirin marka wasiir waxaan ku sheegayaa Toronto way dadkan ay ka ugu horeeyay ilaa hadda ku soo dhawow intaas haddaan ka baxo barnaamijka inaan sii dheeraado aan liiguma talagalay inaan khudbay kulley dadka inaan u yaryaraa liigu talagalay marka insha Allah wa ta'ala hadda waxaan ku furi doonaa sida caadada loo ahayd quraanka kariimka ah waxaan loo akhrin doonaa Sheikh Xirsi Sahal barnaamij Sheikh Xirsi Sahal soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إلهي إذن كيسا أرتا مركو أبوه الرئيسة وحال كم هذين ربك عز وجل حلقة المكل ميين aanu u nahay addoommada aanu u nahay aanu caabudayno aan ka cabsanayno baa horta ilaahay baa mahadle dhammaanteed nabiga calayhi salaatu wasalaamna naxariistiisii allaha siiyo ilaahayna maqaamkiisa ha siyaadiyo annagana ummad isqaadata is-anfacda iswanaajisa istixgelisa السنة حلا الله نقدو وحنو ملاينا يا دقن كان وحا كجرة مركي حول الغلميو أما قف جرية هاي أما وحلة تهليلين يئن وذاد الله يارو كما إنا درسين جنين وذاد كينو سياسة كجرو إن أو ما ركتي وحتري هاي إن أو ملاح لدها كهالله وشود ويودتك لكن أنت سوى كقول دليل يا ولادك
wadaadku waa inuu tagaa meelaha muusiga laga tumo meelaha mashaakilka lagu hayo haddii uusan tegin hadda dad wada quman oo masaajidka ku jira yuu wacdinayaa kuwaas waa wacdisan yihiin masaajidka waxaan oran lahay ragga halkan odayaasha oo xafladan soo qabanqaabiyey oo adinku kulligiiba aad ka mid tihiin waayo mar haddaad timaadeen adinkuna waa ka mid tihiin waxaan u taagnayn oon tahliisha u wadnay oon qur-aanka u akrinaynay inaan helno dowlad cadaalada ummad u siman cadaaladda ummad waddankeeda ka naxda farxaddii hadda aad u wada istaagteen oo markii calanka la qaadayay aad u istaagteen intiina istaagtay in lamid ahaa maalin walba xabar ku dhimata ama Soomaaliya ku dhimata ama badaha ku dhimata marka inaan ka naxiyo mar rabo laakiin taas waa inay qalbigeena ku jirtaan waa inaan ummadda u naxnaa waa inaan wanaageeda ka shaqeynaa waa inaan dadnimadeena wixii aan ku biiri karno ku biirinaa saasaan u soo wadnay nasiib wanaag wasiiro badan iyo madaxweyneyaal badanba waa soo dhaweyn ilaa iyo haddana manaaficaadkoodii ma aan hayno horta kuwa lagu munaafacadsado allah ka dhigo intaas waxaa ii xiga hadda xafladan aad u qurux badan oo aad iyo aad loo soo sharfay maqaam weyn ayay reer Toronto ku reebaysaa waxaan u malaynayaa Cabdiwaaxid waa ninkii 2 goor Toronto lagu wada casumay xalayto waa ahayd caawa way tahay orowa way ka dhacday intaasoo israacda ninay isu raacdana waxaan u malaynayaa nin loo xilweyn yahay oo hadhowto meesha kore la geyn doono inuu yahay haddii meesha kore la deyniyana haddee kulligeen oo kuwa munaafacaadsanayna khaasatan aniga asagu magaalaan ka wada nimido taasna gudhigeedi weeye waxaan filayaa marka intaas waa kaftan midda dhaxaltooyada waxa weeyaan oo biyo kama dhibcaanka inkastoo Siciid soo fiirinayo uu leeyahay 5 daqiiqo iyo 3 daqiiqo wax la mid ah leedahay biyo kama dhibcaanku waxa weeyaan walaalayaal habaar dhammaantiis waa dhimaaleeyay duca dhammaanteedna waa dhurow bal horta intaan isu duceyno qalubta isu furno aan iscafino dabadeedna wixii aan tari karno aan qabanno waxaana ugu horeeya waxaa la yiri shar akhafu dararayn ayaa la qaataa laba dhibaato haddii ay kugu timaado midda yar oo sahlan la qaataa haddii ay dib ku jirno midka yar aan qaadano waxayna ila tahay inaan dawlad helno oo nidaam helno oo aan kala dambeyn helno sharci nulubna kala celiye helno aad iyo aad aan ugu baahanahay ilaahay akhyaarta iyo dadka halkan fadhidana waa aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ka soo qayb galay xafladan ma ku sii dheeraanayo laakiin waxyaalo dhaqana oo aan rabay inaan meelahan maaragtay ka tilmaamo saacadaha soo socda iyo waqtiyada soo socda oo ku saabsan gaar ahaan Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Goonjeex waa noo dambeyn doontaa laakiin hadda maadaama dad badan ay mikrofoonka sugayaan ilaahay ha naga dhigo kuwa wadankooda ku noqda kuwa u baraara kuwa dadkooda wax tara dhibaatadana haysatana xag ilaahay ka timid allah naga dulqaado assalaamu calaykum anoo meeshii ka sii waday doon ilaahay doonaa barnaamijka marka koowaad waxaan rabaa miidiyaha Soomaaliyeed ee jooga goobta jooga oo qabanaya barnaamijkan ay ka mid yihiin maqalkii muuqaalka Maxamed Daahir codka beesha waxaa jooga oo kale Free Somalia Radio Qaranimo Hiiraan Online iyo intaan ka tegay hay'adaha ahaadaan kulli way ii sheegi doonaan gadaal uga sheegi doonaan ay kan midda kale oo waxaan rabaa inaan mahad u celiyo oo u hambaliyeeyo guddiga qabanqaabada oo soo qabanqaabiyay barnaamijkan barnaamijyo badan sidaan oo kale u soo qabanqaabin jiray magacyadooda ma wada sheegi karo